السلام عليكم وايد سلامي أصحابتا haddii tahay koowaad soo booqato youtube-kan magacaygu waa cabaas jaamac cali waxaan ahay macalin dhiga luqadda ingiliishta haddii aad ka mid ahayd asxaabta youtube-kan hore ugu xiran waxaan kugu dhiirigelinayaa like faalladaada nagu reeb qaybta kommentiga muuqaalkan maanta waxaynu kuga hadli doonaa tensigii 12 tennis ayaynu ku laaban doonaa waxaynu soo qaban doonaa hal tennis kaasi oo aynu insha allah halkan ku korfayn doono waxaan isu dul taagi doonaa qaacidada tensiga iyo qaybta ugu muhiimsan tensiga oo ah xilli maaya tensiga la isticmaalaa wakhtiga ay tahay inaad afkaaga ka soo saartay isticmaalka tensigan waa goorma taas ayaan ku bilaabaynaa haddaba tensigu waxa weeye past perfect continuous tense tensiga waxaa loo isticmaalaa marka lagaga hadlayo dhacdo ka dhacday wakhtigii lasoo dhaafay ee baastigii taasi oo samaysay socod amase qulqul markaan ku leeyahay waxaan ka wadaa waa dhacdo hal mar keliya intay dhacday halka aan ku istaagin laakiin socotay taasi oo kale ayaa loo yaqaanaa continuous haddaba dhacdada ka dhacday baastigii waxay samaysay socod ilamaayo ay la kulantay dhacdo kale ay istaajisay taas ayaa waxaa loo yaqaanaa basi perfect continuous tense haddana tusaale kaaga soo qabto laga yaaba tusaalaha inaad si fiican ugu fahanto waxaan idhi tusaale waxaan kuu soo qabtayba she had been studying for hours before the exam iyadu waxay wax baranaysay saacado ka hor imtixaanka xilligay wax baranaysay iyo imtixaanka keebaa horreeyey waxaa horreeyey barashadeeda iyo inay wax soo dhiganaysay wakhti soconayay isla mar ahaanta ay la kulantay imtixaankeedii halkaa waxaad ka fahmaysaa in labadan dhacdo ee inay iyadu wax soo dhiganaysay hours iyo hours ay ahayd wax ongoing amase wax soconayey ilaa ay ka soo gaadheen imtixaankii labada tusaalo kale ayaan kaa sinaya qaacidadii aan ku soo xirayo tusaalaha labaad waxa weeye inaad tidhaahdo I had been eating spaghetti when my dad walked into the room. I had been eating spaghetti waxaan cunayay baasto when markii my dad aabhay walked into the room uu qolka soo galay ficilka soconayay ee horreeyey ee ongoingka ahaa waa inaad wax cunaysay isla mar ahaantana uu aabbahaa kuu soo galay oo ficilkii joojiyey socodka ah kaa waxaa loo yaqaanaa past perfect continuous tense qaacidada tensigu waxa weeye subject oo aad ku binaynayso xagga hore isla mar ahaanta aad had been ku xejinayso feebkiisuna ing wato iyo object aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum